السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيارت muuqaalkeena maanta wuxuu ku saabsan yahay filim lagu magacaabo inankii dhoosada badnaa daawo oo iska taxadar. filimka wuxuu ku bilaabanayaa qoyska Smash Family oo jooga isbitaalka si ay u soo dhaweeyaan inankooda cusub. hooyada ayaa waxay kari weyday inay cunuga soo saarto, laakiin dadaal dheer kadib waxaa dhacday cunugii oo duulay inuu ka soo baxo. hawada ayuu intaasoo jeer isku geedgadiyey ka hor inta uusan dhakhtarka qaban. inankana waxay ugu magac dareen Patrick, ayadoo qoyska Smash ay isku diyaarinayaan inay sawir galaan. Patrick ayaa markiisa ugu horreysay dhuusay. intaasi kadib waxay noqotay dhuusada mid soo laalaabato, taas oo hurdada u diiday waalidka. habeenaha ka mid ah aabbihi ayaa wuxuu isku dayay inuu cunugiisa soo eego, laakiin Patrick waa mid dhuusada aanan kala joojinayn. laakiin aabbihii ayaa wuxuu la yimid ikhtirac cusub, waxa uuna bac ku xiray xagga dambe ee inankiisa Patrick si qaylada iyo urka dhuusada uu u yaraado. laakiin waxaa dhacdo marka ay dhuusadii badato in bacdii ay dilaacdo sidii dhulgariir oo kale, taasoo hurdada ka soo jikiciso dariska oo dhan. Patrick markuu yaro weynaadaba aabbihii ayaa wuxuu bilaabay inuu ikhtiraacyo cusub keeno si uu ula tacaalo dhibaatada cunugiisa haysato. waxa uuna bilaabay xagga dambe ee inankiisa inuu bac ku xiro, bacdaasna uu bannaanka u raariciyo. laakiin waxaa dhacdo in uu marmarka qaar ay bacda ka baxsato salka inankiisa, waxaana dhacday inay bacdi ku soo aado wejiga aabbihii. durbadiiba aabbihii ayaa isbitaal la geeyey, ambalaastana waa loogu wacay. dhacdadaas kadib aabbihii wuxuu bilaabay inuu inankiisa ka dheeraado ilaa ugu dambayntii uu guriga dhan ka guuro. Denise oo ah walaasha Patrick way soo dhibsatay walaalkeed, xitaa hooyadiis waa ay nacday dhuusadiisa awgeed. Patrick maalintii ugu horreysay ayaa iskoolka la geeyey, laakiin waxaa dhacday inuu dhuuso ardaydiina ay ka kala cararaan. marka laga leebo inan lagu magacaabo Alan oo ah inan aanan wax urin karin. Alan wuxuu qabaa xaalad lagu magacaabo anosmia oo aanan u suurtagelinayn inuu wax uriyo. labada ayaa waxay noqdeen saaxiibo lilaahi ah, laakiin Patrick waa mid mar walba la khashkhashaado. laakiin saasay tahay, Patrick waa mid ay nolosha ku adag tahay, waxaana mar walba khashkhashaado inan lagu magacaabo Damon. subaxii marka la gaaro, ciyaalka waxaa lagu amraa in ay aamusaan, laakiin nasiib xumo Patrick dhuusadii ayaa ka soo baxsatay. ciyaalkiina waa ay kala eriday, taasoo keentay in iskoolka laga mamnuuco beryo. Patrick wuxuu doonayaa inuu noqdo cirbixiyeen, laakiin ma hubo inay taas macquul u tahay maadaama uu yahay nin mar walba dhuuso, waana mid mar walba daawado muuqaalo ku saabsan cirbixiyeennimada. laakiin Patrick waa mid niyad jabo marka uu maqlo in cirbixiyeennada looga baahan yahay in ay jirkooda maamuli karaan. Alan oo ah saaxiibka Patrick, isagana wuxuu rabaa inuu noqdo nin caalim ah, waxa uuna rabaa inuu ikhtiraco qalab aanan isticmaalayn shidaal. laakiin Patrick wuxuu saaxiibkiisa Alan ka codsaday inuu u sameeyo qalab uu ku xadidi karo dhuusadiisa. Alan ayaa ka ogolaaday, waxa uuna bilaabay falkii uu ku samayn lahaa shaqadaasi. beriye kadib Alan ayaa wuxuu ku guulaystay inuu sameeyo qalabkii xadidayay dhuusada. Patrick ayaa ku farxay, waa uuna soo dhaweeyey qalabka loo sameeyey maadaama uu xaliyey dhibaatadii ugu weyneed ee noloshiisa caqabad ku ahayd. markii hore waxaa loo ogolaa in uu keliya cuno waxyaabaha qalalan, laakiin markuu helay qalabka waxa uu awooday inuu cuno xitaa digirta. walaashiis ayaa yaabtay maadaama aysan ku ogeen inuu cuno digirta. maalintii xigtay isxaadirinta iskoolka marka la gaaray, qof walba waxaa lagu amray inuu aamuso. waxaana dhacday Patrick qalabkii loo sameeyey in uu shaqeeyo, isla markaasna uu xadido dhuusada ka soo baxayso. markii uu qorshahaas ku guulaystay, Patrick ayaa wuxuu u tagay saaxiibkiisa Alan, waxa uuna ka codsaday inuu u hirgeliyo qorshihiisa ahaa inuu noqdo cirbixiyeen. siday u wada hadlayeen waxaa ku soo baxay inan lagu magacaabo Damon oo mar walba fududeeyo Patrick. waxa uuna ka codsaday inuu siiyo quraacdiisa, isagoo u moodo quraacdiisa. waxa uu soo bixiyey box uu ku kaydiyo dhuusadiisa. markii uu furay, balaayo ayaa ka raacday, taasi oo Damon ka xanaajisay. waxa uuna ku xiray meel, waxayna ka siibeen agabkii dhuusada lagu kaydinayay, waa ayna dileen. kadibna waxaa dhacday inuu Patrick dhuuso si uu iskaga gala eriyo dadkan garaacayaan. dadkii oo dhan ayaa waxay ku qeyliyeen in uu yahay wiil dhuuso badan, aanan loo soo dhawaa karin. maalintii xigtay iskool ma uusan aadin, asagoo ka walwalsan wixii shalay soo qabsaday. laakiin galabtii markii gaartay, Alan ayaa wuxuu la yimid
qalabkii oo kale oo ah mid cusub si uu ku bedelo midkii la ka burburiyey. Maalintii xigtay, Patrick hooyadiis ayaa waxay keentay hosbitaal si xaaladiisa loo baaro. Dhakhtarka ayaa yaabay wuxuuna ogaaday in Patrick uu leeyahay laba calool. Waxa uuna xaaladdan ku tilmaamay mid dhif iyo naadir ah. Patrickna wuxuu go'aansaday in dhibaatadiisa uu u bedelo fursad uuna ugu faa'iidaysto si uu u noqdo cirbixiyeen. Maalintii xigtay, Alan ayaa wuxuu u yimid Patrick waxa uuna u sheegay inuu doonayo inuu ka qayb galo kaasi oo lagu doonayo in lagu sameeyo qalab awoodo inuu 100 mitir duulo isagoonan isticmaalin wax shidaal ah. Markii uu Alan ogaaday in saaxiibkiisa uu leeyahay laba calool, wuxuu garwaaqsaday inuu dhuusadiisa u isticmaalo shidaal ahaan. Maalintii tartanka marka la gaaray, qof walba wuxuu la yimid qalabkiisa, laakiin midna uma suurtagelin inuu duulo. Alan iyo Patrick markay ku soo aaday, waxay adeegsadeen dhuusada Patrick shidaal ahaan ayay u adeegsadeen. Dadkii shacabka ahaa ayaa yaabeen, laakiin wax yar kadib qalabkii ayaa ciladoobay. Alan durbadiiba waa uu hagaajiyey ciladaasi, waa ayna ku guulaysteen tartankii. Maalintii xigtay, Patrick ayaa wuxuu helay kalsooni uu iskaga caabin karo wiilkii fadada badnaa ee Damon. Waa uu ceyrsaday isagoo wejiga uu ka dhuusay, taasi oo keentay inuu Damon suuxo. Maalintaasi, Patrick asagoo faraxsan ayuu guriga ku soo laabtay. Maalintii xigtay, waxaa dhacday in saaxiibkiisa Alan uu tagay. Patrickna waxa uu weydiiyey aabihiisa, waxa uuna u sheegay in Alan uu meel fog aaday, yaana uu ku maqnaan doono. Patrick markii uu guriga ku soo laabtay, waxa uu telefishinka ka arkay koox cirbixiyeenno ah oo hawada sare ku dhex xaniban. Maalintii xigtay, Patrick waxa uu yimid nin lagu magacaabo John. John waxa uu la yaabay maalintii tartanka ay galayeen, waxa uuna u sheegay in dhuusadiisa uu adeegsan karo si loo soo badbaadiyo cirbixiyeenada hawada sare ku xaniban. Kadibna waxaa dhacday in Patrick Mareykanka diyaaradda loogu qaado si loo soo badbaadiyo cirbixiyeenada. Markii uu Mareykanka tagay, waxa uu la kulmay saaxiibkiisa Alan. Waxa uuna u sheegay inuu ka faa'iidaysto dhuusadiisa si uu u soo badbaadiyo cirbixiyeenada. Shaqaalihii xarunta ayaa waxay u faahfaahiyeen sida uu u shaqeeyo dayax gacmeedka, waxayna u sheegeen in asaga keliya uu ku habboon yahay shaqadaani maadaama uu leeyahay laba calool. Patrickna asagoo faraxsan ayuu ka aqbalay. Arrintaasi kadib, Alan ayaa waxa uu Patrick tusiyey saaxiibadiisa kale oo ah caalimiin, waxayna u sharaxeen qalabka ay sameeyeen, kaasi oo ururinayo dhuusada Patrick asagoo u bedelayo tamar si dayax gacmeedka uu hawada sare u gaaro. Maalintaasi waxay ku xigay, Patrick ayaa wuxuu bilaabay inuu u tababarto si uu u soo badbaadi lahaa cirbixiyeenada hawada sare ku xaniban. Asbuuc oo tababar ah kadib, Patrick ayaa isdiyaariyey, waxauna xirtay qalabkiisa halkaasi oo caalamka dhan ay daawanayaan. Alan waxa uu saaxiibkiisa Patrick u sheegay in ay guusha soo dhowdahay. Patrick ayaa dhuusay, taasoo active kareysay mashiinka gantaalka. Qof walba oo xarunta joogay waa uu farxay. Patrickna waxa uu gaaray hawada sare, waxaana dhacday inuu soo badbaadiyo cirbixiyeenadii ku xanibanaa hawada sare. Shacab weynihiina ayaa soo dhoweeyeen Patrick asagoo loo aqoonsaday inuu yahay halyeey.